madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro ayaa hotel Ambassador ee magaalada Hargeysa waxa uu maanta ka furay shirweynaha horumarinta ganacsiyada yaryar iyo kuwa dhexe Soomaaliland. Shirkan oo socon doona muddo 2 maalmood waxa diiradda lagu saari doonaa awoodda dhaqaale aqooneed sharciyo tiknoolajiyadeed ee ganacsiyada yaryar iyo kuwa dhexe Soomaaliland, qaababka loo horumarin karo iyo caqabadaha haysta. Halkudhiga sanadkan ayaa loo qaatay xoojinta iyo adkeysiga ganacsiyada yaryar iyo kuwa dhexe. Waxa ka qayb galay furitaankii shirkan xubno ka mid ah golaha wasiirada maayirka caasimadda Hargeysa, Barasabka gobolka Maroodijeex, gudoomiyaha banka dhexe, xubno ka socday baananka gaarka ganacsato iyo marti sharaf kale. Ugu horeyn kusimaha agaasimaha guud ee wasaaradda ganacsiga, warshadaha iyo dalxiiska Soomaaliland Maxamed Cabdi Faarax iyo wasiirka wasaaraddaasi Mudane Cabdiraxmaan Xasan Nuur oo halkaasi ka hadlay ayaa ka warramay ujeedooyinka shirkan, iyagoo sheegay inuu qayb ka yahay fulinta ballanqaadadii xukuumadda wadajir iyo waxqabad ee ku qutamay shaqo abuurka, kobcinta dhaqaalaha iyo wax soo saarka si loo gaaro isku filaansho bulsho. Marka koowaad waxaanu ognahay ganacsatada yaryar iyo kuwa dhexe waxay kaalin muhiim ah kaga jiraan kobaca dhaqaalaha iyagoo abuura shaqo abuur isla markaana xoojiya in maaragtay bulshadu aanay kala korin oo dabaqad maaragtay tagtay oo tanaaday iyo dabaqad maaragtay saboola aanay noqonin ama waxa loo yaqaano inclusive growth. mudane madaxweyne, shirkan waxaan ka leenahay waxa ugu weyn oo shirkani ku wajahan yahay fulinta iyo ka dhamaynta ballanqaadyadii ka madaxweyne ahaan aad u samaysay qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee ku aadanaa shaqo abuurka, kobcinta dhaqaalaha iyo wax soo saarka si loo gaaro isku filnaansho iyo kor u qaadista nolosha qof kasta oo reer Soomaaliland ah. ka wasaarad ahaan annagoo ku matalayna madaxweyne, ujeedooyinka ugu weyn ee shirkani waxaa ka mid ah in la abuuro xiriir ka dhaxeeya ganacsatada yaryar iyo kuwa dhexe, maalgashadayaasha, hay'adaha maaliyadeed iyo hay'adaha dawladda. in ganacsatada yaryar lagu dhiirigeliyo laguna bogaadiyo ganacsiga ay abuureen si ay u horumariyaan dhaqaalaha qoysaskooda iyo ka shaqaalahooda iyo guud ahaan inay ka qayb qaataan horumarinta iyo kobcinta dhaqaalaha jamhuuriyadda Soomaaliland. in la soo bandhigo agabka iyo badeecadaha iyo adeegyada kala duwan ee ay soo saaraan ganacsatada yaryar iyo ganacsatada dhexe. maayirka caasimadda Hargeysa Cabdikariin Axmed Mooge iyo wasiirada wasaaradaha horumarinta maalgashiga Siciid Maxamuud Buraale iyo maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha Cabdilaahi Xasan Aadan oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in shirkani muhiim u yahay dhiirigelinta ganacsatada dalka, iyagoo xuseen xukuumaddu ay ku hawlan tahay qorshe lagu horumarinayo dhaqaalaha dalka. si gaar ah maayirka caasimadda Hargeysa Cabdikariin Axmed Mooge ayaa sheegay in dawladda hoose caasimadda Hargeysa ay hirgelinayso suuqyo ay ku ganacsadaan ganacsatada yaryar. ganacsatada yaryarna inay helaan suuqyo yaryar oo ku habboon oo kiradu jaban tahay waa muhiim oo dawladdu ay madaxweynaha waxaa ka go'an inuu ganacsatadana yaryar la dareen noqdo, ganacsatadana yaryar soo koriyo. siyaasadda wadajir iyo waxqabadna waxay ku salaysan tahay in gunta hoose ee ummadda laga soo bilaabo aasaaskeeda. marka gunta ganacsatada yaryar kuwa waxay u baahan yihiin in kor loo qaado mihnadooda ay u leeyihiin ganacsiga. ugu dambeyn madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro oo furay shirkaasi ayaa sheegay in xukuumadda wadajir iyo waxqabad ay ka go'an tahay in dadaal dheeraad ay geliso horumarinta ganacsiga. waxa uu sheegay in ganacsatada yaryar ay horumar ballaaran sameeyeen intii ay jirtay Soomaaliland, isagoo xusay inay door muhiim ah ku leeyihiin kobaca dhaqaalaha ee dalka. madaxweynuhu waxa uu ku dheeraaday caqabadaha haysta ganacsatada yaryar iyo kuwa dhexe ee dalka, isagoo sheegay in xukuumaddu ay bilowday dadaal 3 waji leh oo lagu horumarinayo ganacsiyada yaryar. xukuumadda wadajir iyo waxqabad waxaa ka go'an inay dadaal dheeraad ah geliso xoojinta dhaqaalaha iyo in horumarka uu noqdo mid ay dhammaan dhinacyadu dhaqaaluhu isla jaan qaadaan. ganacsiga yaryar iyo dhexe ee dalku horumar la taaban karo ayuu sameeyey muddadii uu qarankani jiray. wuxuu maanta yahay sidoo maayarkaba sheegayay lafdhabarka dhaqaalaha Soomaaliland. waxa uu saami muuqda ku leeyahay ilaha ay ka soo baxaan miisaaniyadda guud ee qaranka iyo kuwa degmooyinku. si kastaba ha ahaato waxaa jira caqabado aan la dhayalsan karin oo hor yaalla ganacsatada dabaqada dhexe iyo hoose
waxaa ka mid ah sidii halkan laga sheegay helitaanka maalgelinta iyo deymaha oo ku adag nidaamka maamulka ganacsiga iyo shuruucda dalka oo mararka qaarkood xakame ku noqda in suuqyada dalka oo mararka qaarkood aanay jirin xasilooni sidaa awgeed ay si fudud ganacsiyo badani u kacaan ama ay dhacaanba waxayna ku talagelin xukuumad ahaan waxaanu bilownay dadaal 3 waji leh waanu doonayno inaanu ku xoojino ganacsiga yaryar iyo kuwa dhexe ee dalka waxaanu xoojin doonaa suuqa xorta ah si loo helo tartan furan loona dhiirigeliyo hal-abuurka iyo aragti isdhaafsiga muwaadiniinta oo dhan waxaa naga go'an inaanu tirtirno teed kasta oo caqabad ku noqon kara maalgashiga iyo hal-abuurka ganacsiga annagoo xooga saari doona ilaalinta xuquuqda lahaanshiyaha hantida si muwaadinku xor ugu noqdo una shaqaysto waxaanu aaminsanahay in ganacsigu yahay jidka loo maro horumarka iyo badhaadhaha dalka sidaa awgeed waxaanu dib u eegis ku samayn doonaa meeshana ka saaraynaa caqabad kasta oo dib u dhigi karta abuurista ganacsiyada yaryar iyo kuwa dhexe qodobka saddexaad waxaanu maalgashi iyo deyn u raadin doonaa muwaadiniinta leh hal-abuurka ganacsiga waxaanu kordhin doonaa tayada iyo waxqabadka shaqaalaha dawladda ee ku hawlan hay'adaha la xidhiidha ganacsiga si ganacsiyadu cusub iyo kuwii horeba u jirayba loogu sameeyo hawl fududayn madashani waa fursad ay ganacsatada khubarada mas'uuliyiinta dawladda iyo saaxiibada caalamiga ahba iyo ganacsiyada iyo baananka gaarka loo leeyahayba ay wax iska weydiin doonaan hanaanka ugu habboon ee aynu ku xoojin karno ganacsiyada yaryar iyo kuwa dhexe ee dalka waxaan bogaadinayaa halkudhegga sanadkan aad qaadateen ee ah xoojinta adkaysiga ganacsiyada yaryar iyo kuwa dhexe geesta kale madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro waxa uu sheegay inuu ganacsigu yahay jidka loo maro horumarka iyo badhaadhaha dalka waxa uu sheegay in xukuumaddiisu ay xoogga saari doonto nabadeynta deegaanada bariga Sool isagoo sheegay in mudnaan ay siin doonto siideynta maxaabiista iyo sidii la isugu furi lahaa ganacsiga iyo socodka ganacsigu wuxuu ku shaqaysan karaa oo marka nabadi jirto marka waxaanu sii wadi doonaa qorshayaasha aanu ku xoojinayno nabadda guud ee jamhuuriyadda Soomaaliland iyo gaar ahaan deegaanada gobolka bariga Sool ee Soomaaliland waxaanu mudnaan koowaad siin doonaa siideynta maxaabiista iyo in sidii dib la isugu furi lahaa isu socodka bulshada iyo ganacsiga waxaan rajaynaynaa in shirkan ka soo baxo doono natiijo ka turjumaysa magaca doorateen oo in la helo afkaarta lagu curinayo siyaasadda aqoonta iyo maaliyadda lagu xoojinayo ganacsiga yaryar iyo kuwa dhexe ee jamhuuriyadda Soomaaliland si looga kor qaado ama looga hor qaado caqabadaha yaala wasaaradda ganacsiga iyo dalxiiska iyo hay'adaha kale ee arrimaha ganacsiga la xiriira ee qaranka waxaan farayaa inay kordhiyaan wacyigelinta bulshada ee muwaadiniinta loogu abuuri karo dhaqan maalgashi iyo hal-abuur ganacsi gaar ahaan in muwaadiniinta la baro laguna dhiirigeliyo suurtagalnimada ka ganacsiga khayraadka dalka suuqyada dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba kuwaas oo ka mid yihiin kalluunka milixda khayraadka badaha iyo faleenka iyo xabkaha iyo inaynu dhiirigelino shuraakada iyo wax wada lahaanshaha waa run in kaabayaasha maaliyaddu ay sees u noqdaan horumarka dhaqaalaha sidaa awgeed waxaanu dadaal dheeraada gelinay horumarinta iyo dhismaha wadooyinka iyo nidaamka isu socodka dalka geesta kale madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro waxa uu furay carwo ganacsiyeed qayb ka ah shirweynaha horumarinta ganacsiyada yaryar iyo kuwa dhexe ee Soomaaliland sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro waxa uu halkaasi shahaado sharaf ay wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska Soomaaliland ugu tala gashay uu gudoonsiiyay Hibe Maxamed Daahir oo hooyooyinka ku ganacsada suuqyada magaalada Hargeysa uu wax barta Cabdicasiis Ciidiid cilmi warbaahinta qaranka magaalada Hargeysa